waayina iyo waxaan ka hadlaynaa ilmayoga Soomaaliyeed ee cisho kasta u dhimanay overdose-ka si Soomaalida ama parents-ka soo iman lahaayeen oo looga wacdin lahaa ilmahan xagee lagu dabiibaa xagee dawo looga keenaa meesha ilmahan laga hagaajin karaa hadduu ilmaha xanuunsanayo uu kaaguna xanuunsanayn macnaheedu maaha inaad diidid ama dhahdid kaygu ma xanuunsanay kaaga xanuunsanaya ilmo waa ilmo saado dhashay baa loo dhalay dibku waa isku hal marka waxaan rabaa in ilmaha la wada caawiyo waalidkay ama ha yaraada ani walaalo ma kullihi sirida bas laakiin wiilal yar baa noo soo kacay alxamdulillah waxaan rabnaa in ilmaheeni la caawiyo maalin kasta wiil gabadh baa naga dhinta walaalayaal waxa la helay dhalinyaro maaragtay 7 ah 2 waa gabdho 5 waa wiilal qaar koomay ku jiraan بسم الله الرحمن الرحيم كنت وعن داود يا هلكن نغا سوتا وا وناغ qoyska ala nagu barata arimo xiisada barnaamijkiisa kaliya xamdi carweelo waa gabadha TikTok ugu shidan hadii la dhaho aalada TikTok welcome to Sankalaw movement kusoo dhaw magaalada Sankalaw dabcan insha Allah waan ku imaan doonaa adiga iyo Landeer barnaamijyo maaragtay waan qaban doonaa Landeer sidoo kale asagana وناغ qoyska kusoo biir asagana mar dhow wax ka filanaysaan hawla adduun wala iska mashquulay dabcan ila daawada carweel ila daawada video ka duubay iga raal ahaada videogaas leer ma lahayn meel mugdi ah meelsha ku duubay waa meel mugdi ah hadaba ogaada meel mugdi ah ku duubay videoga leer ma haysan dabcan degdeg ba ku duubay ayadana way daxsaneed waxa ka okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكن نقل سعتها واو وناك قويسك آلا ونغبرتي أرمي حيسالة عاو وحا مرتي وقواه عنكو أرك مقالة سنكالون عرويلة واتقانا عرويلة كسو دو thank you so much أدي أدبا ومحسنتاي مقعيقو عرويلة عواروس بالا يقو قبطة والله يسوحة مركو حالي داريما قويسك كسو دو محا حالكا كلها يسو دو وعلى لاندير welcome to Minnesota لاندير سو دو بايدي سوودنا أنا سوغن واينا يوحان كهادلينا الميوغا Soomaaliyeed ee cisho kasta u dhimanay overdose-ka si Soomaalida ama parents-ka soo iman lahaayeen oo looga wacdin lahaa ilmahan xagee lagu dabiibaa xagee dawo looga keenaa meesha ilmahan laga hagaajin karaa hadduu ilmaha xanuunsanayo uu kaaguna xanuunsanayn macnaheedu maaha inaad diidid ama dhahdid kaygu ma xanuunsanay kaaga xanuunsanaya ilmo waa ilmo saado dhashay baa loo dhalay dibku waa isku hal marka waxaan rabaa in ilmaha la wada caawiyo waalidkay ama ha yaraada ani walaalo ma kullihi sirida bas laakiin wiilal yar baa noo soo kacay alxamdulillah waxaan rabnaa in ilmaheeni la caawiyo maalin kasta wiil gabadh baa naga dhinta bulshada Soomaaliyeedna farxad waxaasi u maaha soo arrimaha qoyska ayaa wax badan idin soo gudbin doona nala socda gabdhaha fiidiyooda laga duubo waxaan leeyahay horta idinku gabdho mud kala dakaaya telefoon ma ku dhex jiriyo waan cabsan ama telefoonka gal gabadha ama jooji wiilashu way soo qaateen waxay doonaan bifaan ka dhiganayaan ama sida gabdhaha Landeer cadaanka noqo wax kasta banaanka keena ama ayr jooga baa cagina arjo aan waa xiiqay wiilashu shan kasta ma caay karo waa noogayda reexa markuu dhahan dhalinyaro Soomaaliyeed oo Mareykan waa aragtay saa aragteen wadankan aan joogno dhalinyaro Soomaaliyeed baa lagu kari waayay waxbay cunayaan daraagas balaayo qashin shalayda aragtay mid baa la qabtay oo la xiray oo asoo gadaya oo wiil Soomaaliya siinaya lagu qabtay shalay magaalada Minneapolis Said baa dhalinyarada ugu baaba'een Soomaalidii ma aragtay hooyooyinka aad baa ugu ugu xumahay please waxa ka codsanaya hooyooyinka Soomaaliyeed inay dhalinyarada hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay ciyaalkooda xafitaan in ma arka wiilkooda la socdaan ma fahanti booliska ugu wacaan hadii ku